libaaxyadu waa nooleyaasha ugu khatarsan markay timaado baahi daran oo la soo dirista, taasoo ugu dambayntii keeni karta inay cunaan hilibka bini'aadamka. Marka la joogo Afrika, libaaxyadu waa nooc ka mid ah xayawaanada laga heli karo dhulka kaynta ah. In ka badan 20,000 oo libaaxyo ah ayaa laga heli karaa qaaradda Afrika. Dalalka ugu badan ay ku nool yihiin waa wadamada Tansaaniya, Kenya iyo Botswana. Wadamadani waxay leeyihiin dhul kayd u ah xayawaanada duurjoogta ah, kuwaasoo loo yaqaano beeraha qaranka ama national parks. Libaax waa ugaarsado weyn oo caan ka ah deegaanadan iyo guud ahaanba adduunka. Marka la joogo xilliga barwaaqada, libaaxyadu waxay helaan cunto ku filan, iyagoo dilanaya ugaarta tirabeelka ah ee ku firirsan dhulkan cagaaran. Laakiin xilliga baahidiisu daran tahay waa marka uu ku fikiro cunista hilibka dadka, khatartiisuna ay badan tahay. Inkastoo libaaxu yahay dilaa mar kasta oo jaanisku saacido, haddana xilliyada baahidu kuma sii jiraan. Sanad kasta in ka badan 250 qof ayay libaaxyadu ku dilaan adduunka. Qaaradda Afrikana waa meesha ugu badan ee ay ka taagan tahay khatarta libaaxyada dilayaasha ah.